To the sound of the waves of the Gulf of Guinea, we begin our journey in the Black shanqadha mawjadaha koonfurta gacanka Guinea waxa aynu ka bilaabaynaa socdaalkeena Black Eldorado dhamaadka 1960meeyadii toddobada walaalaha ah shirkadaha shidaalka ee ugu weynaa waxa ay gacanta ku hayeen oo ay maamulaan 5% kaydka shidaalka ee adduunka balse maanta waxay maamulaan 10% ugaarsiga cusub muhiim ayuu u ahaa waxaanu ku wajahan yahay Afrika shidaalka weyn dagaalka bariga dhexe iyo kororka sicirka saliidda qaydin Afrika waa meesha cusub ee shirkadaha shidaalku ku hirdamayaan when the Western world marka adduunka reer galbeedku horumarinayay wax soo saarka beeraha iyo warshadaha ma haysanin khayraadka tamarta shidaalka waxay u baahnaayeen tamarta bani aadamka waxaanay adooma ka kaxaysteen Nigeria iyo Afrika imikana waa saliidda qaydin marka waa laga soo bilaabo dhiiga adoomada Afrikaanka iyo hadda oo ah dhuumaha shidaalka oo ah hadda saliidda qaydin waa sheekada kaliya ee loo isticmaalo oo heerar 1 iyo 2 ah leh xaqiiqdiina waa inay istaagta balse sheekada dhabta ah ee sirta ku qarsoon shidaalku waxay ka bilaabantay meelo ka fog Afrika Scotland bartamaha dhulka sare ee Agnical Castle 28 August 1928 oo ay sababta lahaayeen 3 nin oo ku ballamay halkan 3 nin ayaa halkan ku kulmay nin Dutch ah nin Mareykan ah iyo nin Ingiriis ah taasina waxay ahayd siday u ugaarsanayeen ninka Dutchka waa Henry Deteny ee lagu naanaysi jiray Napoleon of Oilman waxa uu ahaa ninkii dhaqaajiyay shirkadda shidaalka ee awoodda badan ee Shell ninka Mareykanka waa Walter C.T. Deagle waxa uu u taagan yahay ninka dhidibada u taagay ee aasaasay shirkadda Don Rogalvi isagoo oo da'diisu ay tahay 31 jir mustaqbalkeeduna uu noqday Exxon ninka Ingiriiska waa John Catherman mas'uulka shirkadda shidaalka ee sida dhaqsaha ah u noqotay BP ama British Petroleum Castle waxa ka dhacay shirkii qarsoodiga ahaa ee shidaalka lagaga shirayay adduunku waxa uu u baahnaa shidaalka shirkaduhuna waxay isku qufleen inay dagaal qadhaadh u galaan dagaalkuna uu u wanaagsan yahay ganacsiga balse tartanku aanu u fiicnayn Henry Deteny waxa uu ku dhawaaqay in la joogo xilligii la xisaabin lahaa wadarta faa'iidada khayraadka adduunka ee goobaha wax soo saar ay yeelan lahaayeen kharashka jidmarista qiimaha iibka wax kasta waa in lagu heshiiyaa oo la qaybsadaa heshiiskii qarsoodiga ahaana sidaasi ayaa lagu gaadhay balse may jirin wax saxeex ahi bahwadaagta shidaalka ee weyn waxay diyaarinayaan sidii ay u maamuli lahaayeen adduunka toddobadii walaalaha ahaa waxa ay qabsadeen shirkadihii shidaalka markii ay qabsadeenna macnaheedu ma aha awood dhaqaale oo ay leeyihiin balse xaqiiqdii waxay ahayd tilmaamo cusub oo Mareykanka iyo reer galbeedku ay ugu yeedhaan in ay ku qabsadaan adduunka saddexaad taasi waa waxa toddobada walaalaha ahi ay aniga igu tilmaaman yihiin subaxdii bishii August 20 1928 amarka adduunku wuu isbedelay shirkado kale ayaa ku soo biiray bilyaneeradii taariikhduna waxay u baaqday toddobada walaalaha ah Seven Sisters oo ah Exxon Shell BP Mobil Texaco Gulf iyo Chevron minaaradda ama dhuumaha dabku ka baxayo waxay marayeen cirka Liibiya lama degaankii gubtay ee ciidu ku cunaysay waa uu la qabsaday sanadkii 1959 dhuumaha shidaalka ayaa halkan ka bilaabmay oo lagu arkayay ragga saliidda oo ay u tahay ta ugu wanaagsan adduunka dhamaadkii dagaalkii labaad ee adduunka cadaadis ka yimid shirkadihii shidaalka ee Mareykanka kuwii kale ee boqortooyadii Ingiriiska iyo Faransiiska waxay ka xadeen Idris Sansulusi boqorkii Liibiya 1959 waxaanu sahaminay
markii ugu horreysay waxay ahayd libiya in shidaalku uu yahay waxa sameeya dhammaantood waxay ahaayeen maraykan sababtoo ah esco waxa ay heleen ceelkii ugu horreeyey ee shidaalka ee ahaa kii ugu horreeyey ee shidaal laga helo laga dhoofiyo iyo kii koowaad ee soo saara wax ka yar 3 sannadood libiya waxa ay bilowday in ay soo saarto in ka badan 1 milyan in ka yar 7 sannadood libiya waxa ay 3.5 milyan oo foosto maalin kasta waxay noqotay wax dhab ah boqortooyadii libiya waxay dabaalatay nimcada shidaalka ee maraykanku ugu weynaa xisaabtu waxay ahayd mid la sameeyay in la oo libiya ay barmiilkiiba ka hesho 12 senti sida madaxweyne Nixon iyo la taliyayaashiisii ay yidhaahdeen 1968 boqorkii Idris iyo taliskiisu inuu noqdo mid ammaan hela oo degan sababtoo ah waxa uu ahaa mid musuqmaasuq badan xaqiiqdii aad u musuqmaasuq badan taangiyada shidaalku waxa ay taagnaayeen badda waxaanay u shiraacanayeen xeebaha Mareykanka ka hor kuwa ugu waaweyn geologistihii Faransiiska Conrad Killian waxa uu ogaa muhiimadda goobaha shidaalka Libiya ay leedahay waxa uu naftiisa kula shuuri jiray inuu yahay ninka dhagxaanta la hadla kadib 2 safar oo uu u socdaalay 20meeyadii wuxuu xaqiijiyay in shidaal ku jiro saxaraha Libiya waa ninka kaliya ee adduunka ee ogmaabka ahmiyadda saxaraha iyo meelaha shidaalku ku jiro ee muhiimka ah bishii February 1941 General Owen Rommel ayaa u socdaalay Tripoli waxaanu fooda saaray bartamaha Afrika isla maalintaasi waxa uu kaarayaal uu kaga soo horjeedo u diray saldhigyadii Ingiriiska waxaanu dib ugu riixay Ingiriiska meelo fog oo gudaha Masar ah ololihiisu waxa uu ahaa mid fudud oo ah inuu wax ka helo shidaalka bariga dhexe waxa uu ku biiray ciidamadii Jarmalka ee bariga ee la filayay inay qabsadaan Bako oo kayd shidaal lahayd dagaalkuna waxa uu u kacay dhinaca waqooyiga Afrika waxaanu ahaa dagaal shidaal and they were talking about that there is oil in Libya and waxay ka hadlayeen in shidaalka ku jira Libiya Talyaaniga iyo Jarmalku waxay la dagaalamayeen isbahaysiga kadibna waxa ay waajaheen shidaal yaraan halkii ay uga baahnaayeen meelaha fog ee shidaalka baaxadda leh ee ay u baahnaayeen waxa ay dagaalka ku waayeen waxa sababay shidaal yaraanta haddii aynu ku noqonno Faransiiska dilkii iyo isku daygii qarinta meydkiisa waxay ahayd dawlad dagaalkuna waxa uu ahaa mid faa'iido ugu jirto balse sirdoonkii Ingiriiska oo kaliya ayaa daneeyay taasi waxay ahayd markii aan Master Killian dilka kaga yimid dhinaca daaqada furan madaxiisuna uu xagga u dheerarnaa waxa laga shakiyay ay tahay waa lugaha uu soo horreysiyay waxa laga yaabaa inay aad u xiiseeyeen Killian waxa la ogaaday in lagu dilay CD Hotel oo ku yaala Grenoble bishii Abriil 1950 waxa laga shakiyay in daaqada la soo furay inkastoo astaamaha dhulka yaalay ay muujinayeen inuu isdilay kadib dagaalkii labaad ee adduunka Faransiisku dib ayuu isku dhisay iyaga oo iskaashanaya wadamadii Anglo-Saxonka ahaa waana inay tamar u helaan si madax bannaan sidaa darteed waa inay dib ugu noqdaan gumaysigii boqortooyooyinka gacantii loo geliyay geologistiska waxay xusiisisay Killian inkastoo ay raadin ka galeen saxaraha Algeria lama deegaanka ka ballaaran Faransiiska laftiisa CFP iyo ERAP waxay gacanka dheer ka bilaabeen baadhitaan dheer istaraatiijiyadii shidaalka ee Faransiisku waxa uu ahaa mid muhiim u ah shidaalka boqortooyadii Faransiisku ama gumaystii hore sababtu waxay ahayd in shidaalku ay ku bixiyaan France markii wadamada Afrikaanku ay xor noqdeen Faransiisku waxay baaqi ku sii ahaadeen inay muhiim u tahay shidaal ay helaan kadib 4 sannadood oo ay qaadatay ugu dambeyntii saliida waxa la helay June 16 Hasiima Sacuud 3,000 oo mitir oo dhulka hoostiisa ah ayaa noqotay meesha shidaalka ee ugu ballaaran adduunka isla maalintaasi June Faransiisku waxa uu noqday kuwa ugu waaweyn ee soo saara shidaalka la guerre de libération qui a été déclenchée et la question pétrolière va amener le gouvernement français à revoir sa stratégie vis-à-vis de la
guerre d'Algérie, tout simplement. L'Algérie a fait des obsèques solennelles aux victimes de la vague d'attentats. The attacks and riots. dagaalka weerarka iyo rabshaduhu Xasima Sacuud waxa uu ugu yeedhay waxa dagaalka dib ugu celiyay Algeria inuu ahaa dagaal xornimo doon ah dagaalku waxa uu u muuqday mid aan saameyn ku yeelan saxaraha khabiiro ajnabiya ayaa aad ugu dhawaa ceelasha shidaalka balse FLM iyo maleeshiyaadka Algerianka ay isku maydayin inay si dhab ah u waxyeeleeyaan ceelasha iyo dhuumaha shidaalka toona waxaanay rajaynayeen in kaydku uu yahay waxa ay mustaqbalka dhaxlayaan oo waxa dagaalka keenay La découverte du pétrole va modifier la géographie même du pays, tant et si bien qu'il y a même eu une proposition du gouvernement français qui a été faite au FLN en 1957, dans laquelle il était proposé que le Sahara continue à être territoire français et qu'il y ait un couloir large d'un certain nombre de quelques kilomètres entre Hassim Saoud et Béjaïa, dans lequel seraient posés tous les pipelines d'évacuation du pétrole vers le nord, et les parties à l'est et à l'ouest de ce couloir devaient constituer... Arrinta shidaalka Faransiisku waxa uu soo jeediyay in saxaraha laga gooyo Algeria isku day kasta oo la ciyaarayay waxay ahayd in dagaalku uu keeno xal nabadgelyo ah shidaalka ka imanayay saxaruhu wuxuu tagayay Faransiiska iyo Yurub dagaalkuna waxa uu qaatay sanado badan wada hadallo ayaa ugu dambeyntii la dhexdhigay Faransiiska iyo FLN gudaha Afiyaan waxaana heshiiska la kala saxeexday March 17 1962 Algeria waxay madax banaani buuxda u heshay saxaraha iyo qaniimadeeda waxaana la dhaafsaday oo la saxeexay in Faransiisku shidaalka uu dhurto xudunta lama degaanku Xasam Sacuud waxa ku sugan 15 qof oo degan oo adeegyo badan looga sameeyay kharashna kuma baxo xudunta caasimada shidaalka cusub ee Faransiiska waxaanay joogan meel 300 oo ceel leh 14 milyan oo tan oo saliid ah ayaa halkan laga soo saaraa inkastoo ay xornimo heleen Xasima Sacuud waxay baaqi ku sii ahayd gacanta Faransiiska waxaana wax ka soo saara shirkadaha Faransiiska faa'iidadu xisaab ma laha xafladaha iyo baadhiyeyntuna aad ayay u badan tahay balse waa tii ugu dambeysay madaxweynihii Algeria Bourmadiin ayaa ku soo noqday oo baqtiyay miisigii ابتداء من هذا اليوم باش على كل حال الثورة الاشتراكية تدخل في قطاع اللي هو كان قطاع خاص يعني حتى واحد ما يمسه وهو القطاع البترولي قررنا تأميم النقل البري يعني كل الأنابيب اللي هي خارجة من الآبار هذه تصبح ملك متاع الدولة subaxii bishii January 1971 Faransiisku waxay ku tooseen inay farahooda ka baxday madaxweynihii Algeria cid dishay ballankiisii ee bedeshay markii ugu horeysay taariikhda ee shidaalka Algeria la qarameeyo amba la caalamiyeeyo kuwa aan jeclayn wadarta guud waxay aqbaleen shuruudaha cusub ee meesha ka saaraya Algeria Faransiisku waxa uu isku dubariday shidaalka mustaqbalka laba nin ayaa ogaaday basaaskii hore Biyoog Guillaume iyo Jacques Foccart oo saaxiib la ahaa General de Gaulle kalena talinayay arrimaha Afrika howlgalkoodu wuu cadaa inay shidaal ka raadinayaan Afrika oo ay sugaan ku filaanshaha tamarta ee Faransiiska socdaalkoodu waxa uu ka bilaabmay halkan Gabon 1956 Boshanti Delta webigu waxa uu qulqulayay kaymaha Fogani aragtidooda ugu horeysay sanad kadib waxa laga helay shidaal Gabonna waxay noqotay maxamiyad Faransiisku xukumo waxa xukumayay Jacques Foccart oo ogolaansho ka haysta Omar Bongo waxaana la sameeyay xiriir diblomaasiyadeed Gabon waxay mahadisay Faransiiska oo waxaba la yiraahdaa Gabon oo Faransiis la'aani waa gaari bilaa dirawal ah Faransiiska oo Gabon la'aan ahina waa gaari bilaa shidaal ah Bongo waxa uu ku celceliyay inuu ku waramo taasi balse may joojin ELF waxa
saamayn ku yeesheen dhul ballaadhan oo ku yaala Afrikada Madow, Nigeria, Chad, Gongo, Cameroon iyo Angola. ELF waxa ay fangaraysay talisyo kala gedisan iyo dhaqdhaqaaqyo dagaalo goriileyn ah qaada. Diblomaasiyadii madaxa adkayd waxa kala jaray daadad waddan kasta oo ay ka soo saarayeen shidaalka oo musuq iyo laaluush la socday ay sameeyeen mas'uuliyiinta ELF iyo hogaamiyayaal Afrikaan ah oo tiro yar. waxaanu ka qaadnay balaayiin faran oo si qarsoodi ah loo kharash gareynayay digteetiro Afrikaan ah iyo mas'uuliyiinta ELF ay sameeyeen mid intaa ka badan inay xadaan oo ay abuurto murugo fara badan. Afrika waxay fangaraysay qaybo muhiim ah oo nolosha siyaasadda Faransiiska ah, balse arrimaha ELF waxay ahayd mid aad u yar inay siyaasadaha noocaas ah ku bixiso kharash. Shamaca lacagtu wuxuu ku keenay dhibaato ELF mas'uuliyiinteeda iyo asxaabtoodaba. badda iyo ciidda qaar Afrikaan ah oo nolosha maalinlaha ee saliidu ay qaxoonti ka dhigtay, balse waddan sidan Beeli oo 1 milyan oo qof degan yihiin kama madax bannaana shidaalka oo waxay ka dhigtay noloshooda maalinlaha ah mid adag. Tamaandhadu waxay uga timaadaa Koonfur Afrika, baradhaduna waxa looga keenaa Paris. waxaanu gobolkani u dawarsadaa hay'adda lacagta ee IMF-ta. lacagtii shidaalku way tagtay, xafladayntii way dhammaatay. 8 sano kadib kumanaan ayaa maqlayay warar in ELF la soo afjaray Fordig Fault November 2003. Luwakla Falakla-John, gudoomiyihii hore Indal Trando iyo Afro Sirfan waxa gacanta loo geliyay Philippines. saddexdoodaba waxaa lagu xukumay xabsi daa'in. ELF waxay sidaasi uga mid noqotay naadiga 7 walaalaha ah. Liibiya 1 Sebtembar 1969 xaalad caafimaad oo la soo daristay boqor Idris oo ugu baxay in laga soo daweeyo kooxo saraakiil ah ayaa sameeyay inqilaab military. Muammar Gaddafi waxa uu ku dhawaaqay Jamhuuriyadda Carbeed ee Liibiyada cusub. waxa uu xilligaasi ahaa 27 jir. shacabka Ingiriisku waxay hadda si buuxda uga warqabaan in saldhigoodu aanu sii jiri doonin. 7 walaalaha ah dabayshii isbedel doonka Cornel Gaddafi ayaa aastay xajmigoodii 1970kii. waxa uu qarameeyay shidaalkii Liibiya, waxaanu ka soo horjeeday dhammaan rajadii. waxaanu kor u qaaday qiimaha foostada saliidda ah 30%. bilo yar kadib 7 walaalaha ahaa waxay wajaheen cadow aad u daran. Gaddafi gave a speech in the opening of the discussion. And he said one important word or sentence. He said, Libya lived 5,000 years without oil, and it is ready to live another 5,000 years without it. Gaddafi hadalkiisu wuxuu furay wada hadal. waxaanu yidhi kelmad muhiima oo ahayd Liibiya waxay noolaanaysaa 5,000 oo sano shidaal la'aan, diyaarna waxay u tahay inay noolaato 5,000 oo sano oo kale oo shidaal la'aan ah. taasi waxay noqotay ta ugu weyn ee shirkadihii shidaalka dhulka ugu tuurtay si xun. si aanu taasi u cadaynana waxa aanu ka joojinay soo saarkii shirkaduhu shidaalka soo saarayeen. qaybta Tripoli gacanka Gaybis waxa ka baxaya minaaradda shidaalka waa ta ugu ballaadhan badda Mediterranean-ka. Gaddafi waxa uu baahnaa lacag uu ku bixiyo kacdoonkiisa. saliidda ayuu dhoofiyay, sidoo kale waxa uu fangareeyay dhaqdhaqaaqyo adduunka ka jira. lacagta saliidda waxa uu kula dagaalamay dagaalka imbraadoriyadda ka dhanka ah, waxaanu noqday sababtii Falastiiniyiinta. 1982 Mareykanku waxa uu hoos u dhigay cunaqabatayntii ganacsi ee ka dhanka ahayd Liibiya.